kulanti wanaagsan daawadashana qiimaha badan jimcaha geegsan si kasta aad noo maqlasaan barakooyinka ee korkiina ahaa barnaamijkeena daawashana jimcaha waxaynu jimcaha ku qaada dhigana daawashana qiimaha arrimaha cajiibka ah ee inagu dhex markaasi qasan inaga iyo Kenya ama inaga iyo Kenya ina dhex taagan runtii waxaan aad iyo aad aan marka u horeysa rabaa inaan idin iraahdo daawashana qiimaha meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka isla markaana daawashana qiimaha xasuusiyo urfadhi media intii maxkamaddu ay socotayba waxa ay ahayd warbaahinta ugu ballaaran ee mar walba ka warramaysay arrimahan hadaba barnaamijkan jimcaha uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore isla markaana waxaynu ku eegi doonaa Kenya waxyaalaha faa'iidooyinka ay gaadhay inagoo runtii isku sheegi doona cadeymo iyo barnaamijyo weyn oo arki doontaan daawashana qiimaha leh waxay kaloo eegi doontaan Kenya faa'iideynta laga yahay Soomaaliya ku qabtaa Kenya maxay ku guuleysatay muxuuse u taray dhaqdhaqaaqii hadeerta u dambeeyay halkee ayay maraysaa kala qayminta Kenya sababtay ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta warbaahinta iyo waliba mideynta dadkeeda gudaha warbaahinteeda aqoon-yahankeeda jihaynta arrimaha gudaha ka haysta iyo waliba qasitaanka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ciidamada Amazon iyo kulamada markaasi gudaha gadaashiisa ay ka wado sababta ay arrimaha qaarkood aysan ugu kala jabin karin yacni aysan hayn in isugu kala jabaan wadada Soomaaliya jaawareerka ay si ee gelisay iyo arrimo waaweyn dawadayaal waa barnaamijkeena falanqaynta jimcaha daawashana qiimaha leh dawladda Kenya waxaad ogtihiin in ay dhowr iyo 10 sano ugu dambeeyay qorshaheeda koobaad keeda labaad iyo keeda saddexaad ba uu ahaa inay hesho bad gaar ahaan ay hesho qayb kamid ah ama qor kamid ah badda Soomaaliya ilaahay ku manaystay arintaas say u soo bilaabatay iyo meeshay soo martay iyo marxaladaheeda midnaba urfadhi media weydiimisaan dabcan qof kale Soomaaliyeed weydiimisaan Google-ka ayaad weydiinaysaan sidoo kale waxaad weydiinaysaan dokumentiyada gaadhaya 100,000 ee dokumenti ee dunida oo dhan ay ka qortay warbaahinta Soomaaliyeed ka qortay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee arintaas u soo kacaamay ka qoreen barnaamijkii Somali Talk ka bixi jiray ee qoraalada ahaa maxkamadii la kala mutay iyo dhibaatooyinkii xoogana ee naga soo maray hadaba waxaan rabnaa Soomaaliya halka kaliya ee fursad ay u heshay waxay ahayd arinta maxkamadda ayay ahayd tiina Kenya waxaad ogtiin meeshay marinayso arintaas hore waxaan uga hadalay in ay jireen shakhsiyaad وكمدي هاي أمباسطور نرويجيانا ورير نرويج وأرنتاس لكلها ولا ضلب مدح يسكو جريه كان لكن تمر والب وحي أجد إن فائدة ذكرية عدة ماشي وجدت تعيض على تاي سفقرات كنا ويدو يكون فائدة ويو كينيا أي ربتين سفقرات الصومالية كلا جاد بديد بعد الصومالية إن لسك أفكرته مركل سوق كوب أي أرنتاس ودارنت وأنا تحال كمان تينا مرينسا taasoo maanta keentay in siyaasiyiinteeni waxgaradkeeni aqoon-yahankeeni warbaahinteeni dadkii wadanka Soomaaliyeed marka lagu soo duulo qayb kamida ama dal sheeya oo soo sameeyo ilaa madaxdeeni ay ku kala aragti duwanaadaan oo runtii ayaan darooyinka Soomaali in maanta cimrigeenu ina gaarsiiyo ayaamuhuna inagu simanay noqotay ummad Soomaaliyeed oo ku kala qaybsan aragtida noocaas oo kale hadaba Kenya sida muuqata guulo aad waaweyn ayay gaadhay oo ay kamid tahay inay marka hore ku guuleysatay inay ra'yi caamka Soomaalida ay kala qaybso waliba inta la soo gaadhin shacabka Soomaaliyeed oo iyagu laga yaabo in aysan waxba isku hayn waxa kala duwaneen yacni isdiidanayn isjecel laakiin la kala waxaan ka hadlayaa dadkii ahlu aqliga ahaa ee dadka aqliga saaxiibka uu loo milanayay inuu saaxiib yihiin aqoon-yahanka siyaasiyiinta xilkaski dadkii elite-ka ahaa ee dadka uu ahaa yacni dadka ishu qabanayay ahaa ay ku kala qaybsan yihiin qaarkoodna u arkaan guul in Kenya la soo dhaweysto oo Kenya heshiis lala galo oo Kenya wasiiradooda wadankeena yimaadaan oo Kenya qaadkeeda la furo oo Kenya mar walbana ay ku soo ladayaan arrimo kale oo kamid tahay Ethiopia maxaa qaadkeeda loo furay yacni waxaa iyadoo maaragtay waxay taas la mid tahay idinku qof isdilaya oo qof aad isku dhex jirtaan inaad yacni atraahdo oo kale qof halkaas oo kale taagan oo banaankaas oo kale taagan aad tirahdid maxaa qofkan isku feedhaysaa mad ka isfeedhaan halka taagan ma isfeedhaan waa laga yaabaa kasoo adiga ku sugayo laakiinse ayadoo adiga feed kugu socdo inaad tiraahdo ka kale ma isfeedhaan oo orodaan saas uma lagu qiyaasi karaa way dagaal baad ku dhex jirtaa يعني وحيالها يعني أي ضدك قاركود كون دعودان ورنتي مسقطك حنوس ضدك حنوشينيا أي كم تهاي أو دجال قف وتصانهان بالكورن 7 كي مركو دجال كسعوني دجال كسومالي ده يحمشدو وسعوني هدي ضد سومالية كتر لها هاي المحاكية دجال لوجو قادي ويا كور وأساسه كله كديجانت
adoo dagaal ku jira dal kale aan dagaal ku qaad ayay ka dhigan tahay macnaha qofka saadhaya uu bareeraya oo kama aha يعني كما هاي إنه كان يليه هي موضع كليه ما أوتوبيا نعبا هي ما هو أذينا يقف كمركها له وركان يا وين وسوا دوشي وركان يبدأ إن الدونسة أيوه حكر جا قف سجى طلق له وشقيري يعني قف كي أيوه كتشهيرية أنتو كهذي وأرمها عجيب كه أي كان يكون جوري يستوي كمت وفكرة كان يؤهر قلي وأنا أرين كان يأيضا دل وجرت وايو أيضا كان يبدأ إن قيبها يسطو مركل وجوري هذا محد مريكان الولد قال لي مويتي محد مريكان بتسوي ويسنا سوا كل هدي لو جوده بيلمت وحيالها كلا ياب كاي كينيا يكون جوليستي أو ربع برامج كان إن قيبته ورانا كوقا ذا رجنا وحكم ذا dadkii midoobi lahaa markan oo kale ay aad iyo aad u kala ba maanta maxay tahay iska daahare dadkii isku doonida saarnaa ayaa kala aragti ku ah Kenya waxa kale oo jira adduunkan ay ku dhaqanahay dunidan oo dhan ama koomkan oo dhan waxa jira loolan dalkooda jira loolan ma jiro dal adduunka ku yaala oo aan dad la loolama iyo duni la loolanta lahayn ama dal ay sahayaan oo xataa wax kale iska daaya xataa hadaadan dhul ay isku hayn oo aydan biyo isku hayn baad isku hayn oo dad isku hayn oo hawo isku hayn qaar waxa jira xataa aad isku haysaan oo kaliya inaad noolaatid xasab dalalka qaarkood isku haya salaah yar baan siinaya Faransiiska iyo Turkigu waxba isku haystaan xuduud ma laha biyo isku haystaan baad isku haystaan haddana waxay isku haystaan saameyn isku Faransiisku Turkiga wuxuu uga laadlaadaa seebaad u handaday Greece seebaad awood u noqotay soo baxdo kale fiiri marka waxa la yiraahdo adversary-ga waxa la yiraahdo ama waxaan loolanka la yiraahdo cadaawadan loolanka la yiraahdo haddaad istiraahdo يعني عد كل الله ما سامي شرتو يعد الله ما سدد شرتو أما أدونكم عدو اللي منهن أما كان يسوي شرين بينهم هنا ولا عليهم هنا كم بينهم هنا وفيك يعني وح الله لو حكيت شرين مشرين وهروسي بالركرة إسكاب ده كينيا دول بينك كده حياة أو دول بينك حيستا أو دت كيني أيا كينيا سن أو قالين دت كالصومالي ده أي كينيا شو أي كينيا كل شيء لولا ما رقم وصيد دت ككوكويا ده لولا ما رقم وصيد كلانشيد سيد اللوية ده sida mukaambada sida masayda sida yani loola marqo waa second class citizens waa muwaadiniinta darajada labaad weey tusaale yar baan ku siinayaa Kenya qofka ku noolaa jiray ku noolaaday hadaad gaari ka soo raacdo meesha leedo gobolka leeyahay Rift Valley magaalada u weyn tahay Nakuru oo aad soo aado xagga magaalada caasimadda Nairobi inta aad jidka ku soo jirto ma jirayso meel askari kugu joojinayso oo sharci lagu weydiinayo kibande leeta kibande lagu dhaxayo kitambulisha meel lagu weydiinayo ma jirto hadaad ka tima ogowna gobolkaas xuduud dhinaca galbeed ayuu jiraa hadaad gobolka Nyanza ka timaado magaalada Kisumu u weyntahay dhinaca asaguna galbeed meel lagu weydiinayo ilaa Nairobi 200 kilomitir ma jirto Mombasa iyo gobolkan Costiga waa kadalik yani qofkii garanaya gobolkan la yiraahdo east iyo gobolkan la yiraahdo waqooyi bari Kenya north eastern hadaad ka timaado Garissa ilaa aad ka gaarayso Thika waxa lagu weydiinayaa magaalada Thika la yiraahdo ilaa intaad ka gaarayso intaas oo checkpoint ah yaalo oo sharci lagu weydiinay maxaa meesha markaa ku jira waxa ku jira hadii la dhaho dhinacan galbeed ee dalkana dhinacan aan dhaho dhinacan hal meesha la yiraahdo Kitale iyo area-daas iyo meeshan koonfurta Suudaan iyo xididda leedahay wasaas oo kale sharci isma weydiiyo oo wax haba yaraatay lagu qasayo marka waay baa dhinacan Soomaalida la isku weydiiyaa sababta waxa weeye dadkan Kenya sax ma weeyaan marka iyadoo Kenya ay saasi tahay oo xaaladeedu ay saas tahay ayaa waxa muuqata in la dooriyo in laga dhaadhiciyo Kenya inaguma aha cadow inoma Kenya hadda cadow inoo hayn badeena ma soo farageliseen dhibaatooyinka intaas leegana ma sameeyeen Kenya marka waxyaalaha ay ku guuleysatay kale waxa kamid ah in ay qadiyada Soomaalida kala dhaxaysay badan ay ku qabsatay Soomaalida ay dadkeeda ku midayso warbaahinta Kenya waxaan u maleynayaa warbaahin Kenya oo online oo yartay oo aan aqoon hurfad media aysan aan baaritaan ku sameeynin oo aan booqan wayarta dhammaantood waxaan ku sameeyay waa khulaaseena warbaahintooda wargeysyadooda faalooyinkooda Twitterada ragooda waaweyn
ragga xisbiyada kala duwan ODM ka kuwa ku jira kuwa Jubilee kala go'ay boqolka sii kala noqday madaxweyne ku-xigeenkan iyo madaxweynahan iskhilaafsan dhammaantood nin kastoo hadla doodaha ay sameeyaan maxadadooda daraasadaha ay u diraan African Union kuwa ay u dirayaan IGAD kuwa ay u diraan jaamacadda carabta xitaa u diraan qoraallo u diraan Israa'iil bay u diraan Ingiriiska cilaaqada la leeyihiin Mareykanka qoraallo soo diraan waxay ka hadlaan meelahan waaweyn goobayaashan weyn Washington iyo Chatham House London ku yaala iyo dhammaantood bay ka hadlaan waxay sameeyaan khulaasayn arrimaha badda ah oo dhan waa isku wada carab waa isku wada mowqif waa isku wada hal waana 42 qabiil oo kala dhaqana kala afa midiyo isku haysta laakiin arinta Soomaalida waa kamase madax iyo mujo mucaarad iyo muxaafid nacas iyo fariid iyo nacas aqoonyahan iyo jaahil iyo mid caadiya mid meel ka hadlaya mid Facebook ku jira iyo mid online ku hadlaya waa kamase waxayna u arkaan in Soomaaliya ay bad kala maqan tahay Soomaaliya waxay rabaan inay wax aan xaqiiqayn xaqiiqa dhigaan ra'yo caamka wadankoodana arintaas way ka dhaadhiciyeen oo waxay ka iibiyeen in Soomaaliya ay bad kala maqan tahay waayo beenta marka lagu celceliyo run baa loo maleeyaa innagana iska daa wax kale ee 30 qof ee siyaasiyiinta wadanka ahaa ee qaar madaxda yihiin qaarna madaxda shalay haayeen biri ay qaarkood noqon karaan ayaa isku mowqif ka ahayn warbaahinteennii iyo dadka caanka ah baraha bulshada ka hadlayay baa nin walba sidoo doon uga hadlayaa oo qaarkood ay halkaayna marinayaan oo jaha kale inoo saaraya waa waxyaalaha Kenya ay ka shaqaysay ku guuleystay waa la dhihi karaa Kenya waxyaalaha kale ee muuqata inay ku guuleystay waxaa kamid ah inay khalkhaliso maxkamadda ICJ khalkhal aad u weyn ayaa laga soo sheegayaa maxkamadda kulamadan Kenya waxay uga faa'iideysatay in ay mar walba isku daydo inay kelmad ku saabsan arrimaha badda ku soo darso Blue Economy been ogeyn oo toddobaadkana shalayna waxa State House ka aragteen inay soo saareen ereg leedahay amiable solution wax loo bixiyay amiable waxa weeye xal barakaysan yani xal lagu tanaado in arinta badda laga gaaro markii dambe way ka saareen oo way bedeleen laakiin waxaas oo dhan waxa weeye jaha wareer ka taagan arintaas Kenya waxay kale ku guuleysatay inay ra'yo caamka international community-ga ay qadiyada ka dhigto qadiyad standard ah qadiyad international issues oo ay cid walba ka dhaadhicisay dalal badan bay arintaas qayladhaanta gaarsiisay Ingiriiska kamida waxa kamida Faransiiska kamida waxa kamida nimanka leeyahay Talyaaniga kamida Norway ba hore ugu jirtay oo kamida waxa kamida IGAD oo dhan wadamada African Union ba kamida waxa qaramada midoobay ee golaha ammaanka hadda ku sii socotaa يعني Soomaalida dhexdeedii iyo dawladda Soomaaliya dhexdeedii ba kamida meesha ay Kenya wax marinayso waxa weeye waa gilgil siyaasadeed iyo murqo siyaasadeed oo ay ku kala bixisay Soomaalidina gaar ahaan dadkii lahaa waxbaan oo naqaana aqoonyahan baan terrorist baan isticmaalnaa siyaasiyiin baan soo noqonnay wasiiraan soo marnay saraakiil baan ahayn koon baan ahayn maamul goboleedaan ahayn ay garawayeen war arintan waa biyo kabar yimid waa arin ku saabsan below the belt waa arin ku saabsan yani adiga mustaqbalkaaga ku saabsan waa arin masiirka caruurtaada 100,000 ee sanadood soo socda hadii ilaahay adduunkan ka daayo uu yani uu dhaafo intaas aad u xidad adduunka ka wada tagno waa arin waa masiirkii waa dhaxalkii shalay ee garaway waxa ay marasa arintan markaasi meel ay Kenya ay damashaado oo ay ku ciyaarto aqliga iyo maskaxda dadka Soomaaliyeed oo ay faatir u kala qaado Kenya in ay arintu naasideed ay ku dhaxgasho dawladda Soomaaliyeedna la jahawareeriyo oo ay jahawareerto oo yani jahawareerka ay qayb ka noqdaan siyaasiyiintiin oo ay qayb ka noqdaan bulshadeen xaqii la oran lahaa dawladda oo lagu taageeri lahaa sutida u qabto Kenya wax wada hadlayaan la furin maxkamadu hadhamaato maalinta maxkamadu dhamaato yes Kenya waa daris waxba inaga dhaxeeya dad badan oo Soomaaliyeed baa jooga in waxaanad moodaa xataa dadkii Soomaaliyeed ee Kenya gudaheeda joogay qaarkood xataa inay u qaateen inay Kenyan yihiin oo Kenya ayaga wax tartay waxay ilowsan yihiin Kenya ninka maalgashiga ku sameeyay ayaa wax taray oo Kenya wax taray Soomaaliya waxa muu tarin Kenya isaga waxa ma tarin adduunka maalgashiga waa la kala iibsadaa qofka in maalgashi uu dal ku sameeyo dalalka qaarkood oo Mareykanka ku jiro waxay gaarsiiyeen inay baasaboorkooda siiyaan oo qofkii la sharfo oo la yiraahdo kaale baasaboorka iga qaado $500,000 nagu invest garee Turkiga ayaa $250,000 lagu kala iibsadaa
New Zealand ayaa salayto la arkaysan raggii dhaqaalaha adduunka ugu weynaa ay iibsanayaan qofka lacagta haysta isaga qiimo leh qofka investorka ah ee wax maalgashadaha isaga qiimo leh qofka yani innovationska iyo planner qorshayaasha business planners-ka haysta isaga waayo qofka loo baahan yahay oo macduurka ah oo adduunka oo dhan uu diamond ku raadinayo haddaad yani meel oo tuulo aad tagto aad wax ku iibiso waxaad iibsaha waayin wax ka iibsada ma weydid yani ma jirto sabab aad ugu dhowdhowdaan oo aad isku soo gadhaadhicisaan inay Kenya waxay tartay tan qaxoontiga ee Soomaaliya qaxoontiga Kenya haysa Soomaaliya adduunka oo dhan bay u qaxday adduunka oo dhan bay u qaxday Kenya iyada qaxoontiga Soomaalida ku faa'iiday wadankeedu ku dhismay dhaqaale qaramada midoobay kaga heshay xaruntii ugu weyn ee qaramada midoobay ee Afrika ku taalay noqotay waxaasoo Soomaaliya loo soo shaqatay qaxday Soomaalidu waxay ku qaxday Djibouti waxay ku qaxday Ethiopia Yemen bay ku qaxday waxay ku qaxday Libya waxay ku qaxday Mareykan waxay ku qaxday Europe oo dhan wadamada Carabeed oo dhan bay joogtaa adduunka meelaysan Soomaali u dagaagin ma jirto waxayna ku muteen meelaha ay u marka Libya laga reebo meelaysan Soomaalidu aysan wanaag ku mudan ma jirto Kenya maxay tahay Soomaalidu dib u dhac waxaan kama soo gaadhin kuwii qaxoontiga 30 sanadood bay xiriyaha ku jiraan oo xataa xuquuq aan la siin ay dhalasho ah oo aan dadkii ku dhashay 30 jir marayaan oo aysan Nairobi gaari karin Nairobi aysan tagi karin ayagoo high school ku dhameeyay ku dhashay ayaysan Nairobi hadii u baahan yihiin warqad pass movement ay u baahan yihiin warqad dhaqdhaqaaq inay helaan marka qodobkan waxaan kaga tagay Kenya guul badan bay gaadhay hadaynu runta isku sheegno guusha ay gaadhana waxa weeye in ay Soomaalida kala qaybisay maamuladii qaar iyaga la jiraan siyaasiyiintii qaar iyaga la jiraan inagii iskeen nacsiinayso marka waxaan u baahannahay inaynu arrinta ka heshiino waxaynu ku heshii doonaa dalkan ma iibinaa oo Kenya ma u daynaa inay iibsato iyo ninkii iibsanaya badaha iibsado iyo qofkii iibsanaya iyo cidii maartay nin walba maxay tahay meesha doon ha galo markaasi mise waxa inaga dhaxeeya comment-ka qaybta dambe baynu ku eegi doonaa inaynu wada ilaashano